waxay leen muddo si habsami loo socday dhismaha iyo dayactirka laamiga dheer ee isku xira Garowe iyo Gaalkacyo gaar ahaan wajiga koowaad oo ah inta u dhaxaysa Buurtile iyo Xarfo kantaroolka koonfureed ee magaalada Buurtile ayay ka bilaabatay shaqadu waxayna haatan ku dhowdahay degmada Xarfo sida warbaahinta dawladda Puntland uu xaqiijiyay gudoomiye ku-xigeenka kambaniga shaqada gacanta ku haya ee Sixilqaan Nabadoon Khaliif oo Cali dhigitaanka daamburka ama laamigu waa mid fudud marka loo eego shaqadii socotay waxaana noogu diyaarsan mashiino iyo qalab casri ah oo noo fududeynaya shaqada isagoona intaasi ku daray waqtiga la bilaabi doono daamburka ama laamiga iyo waliba caqabadaha yaryar ee dhanka shaqada ka haysta waxaan rabnaa xoogaa yar inaan idiin soo gudbino warbixin ku saabsan shaqada halkan ka socota oo ah jidka u dhaxeeya Garowe iyo Gaalkacyo laba fays baanu ka dhignayo Jalam iyo Xarfo waxay isu jiraan ama jidkaasi inta la dayactiraya ahaa 80 kiiloomitir kantaroolka Buurtile waan ka bilownay waxaan u sii wadnay xagga Xarfo hadda Xarfo baa gabagaba ah oo dhamaada ilaa Buurtile waxa weeye waxa la saaray carakawadii iyo jebintii iyo tii hoose laayaradii loogu talagalay in la saaro dhammaan waa la testigareeyay ama waxa laga qaaday tijaabo alxamdulillah waxa weeye sidii loo baahnaa bay yihiin iyo si ka sii fiican hadda waxaanu rabnaa fayskii ugu dameeyay inaanu gallo hadii alla idmo oo laamiga la saarayo halkan waxa ka sharqamaysa ama ka istaaran warshadii loogu talagalay inay jayga diyaariso qalabkan halka yaala waa qalabkii loogu talagalay inuu laamiga dhigo laamigi waxaan u malaynayaa dhinaca kan buu ina ka xigaa bidixda alxamdulillah waxaan isleenahay shaqadaasi sidii loogu talagalay iyo si ka fiicanba way u fulaysaa meel fiican bayna xaaladeedu maraysaa midda kale laamiga iyo carakaawadu islama socon karaan laamiga saaritaankiisa wax badan fudud waxa laga yaabaa laamiga 40 kiiloomitir markii la saarayo bil ama 2 bilood inay ka badan laakiin waxa shaqada u baahan oo nadaaminta u baahan waa jidka intiisa kale hadii Allah awood la ogolaadana waxaanu jecel lahay inaan hadii Ilaahayga idmo ciid hadii la tukado oo la isu soo noqdo oo la soo ciido inaanu shaqada bilowno hadii Rabbiga idmo waxyaalo badan oo marmar way iska yimaadaan challenges walaw aan isleeyahay inta badan challengeskaas wuxuu ka imaanaya xagga kore iyo GIZ haday tahay dhaqaalaha sidii loogu talagalay uma ayan bixin annagu waxaanu ku shaqaynaynay contractor baanu ahayn waxaanuna ku shaqaynaa wixii aanu qabanno baa la isla arkaa markii la isla arkona waaga ka bacdi baa waxa la dalaca invoice-yada shaqada hadda muddo sanad ku dhow baanu wadnay intaanu wadnay hal invoice baa naga soo gaaray inta kale waxaanu ku wadnay shaqada jeebkayaan ka wadnay annaga aad isugu xilsaaray inay shaqadaasi fusho oo ay mira dhasho marka halka xoogaa waxaan ku dhaliilayaa hay'adda GIZ inayan doorkii ay ku lahayd barnaamijkan ama mashruucan inayan ka soo bixin sababtoo ah waxa weeye waxba lagu heshiiyay hay'adda wadooyinka oo BHN waxa laga rabaa maadaama iyagu xiriirka isu dhow iyagu lahaayeen oo ay noo dhaxaysay GIZ annaga ay noo dhaxaysay hay'adda wadooyinku inay la xisaabtanto daba gasho oo wixii haatan khaladaha oo ka yimaada iyadu kula xisaabtanto bay ahayd haatan waxaan rajaynaynaa insha Allah wada hadal iyo waan fiican baa socota in la fududeyn doono shaqada inta dambe oo la istafaahumi doono shaqo wanaagsan oo nadiif ah oo qolo walba roolkeeda ama doorkeeda intii kaga aadanad ay ka qaadato ay noqon doonto sidaas aan rajaynaynaa guuleysaaid jaamac warbaahinta dawladda Puntland Buurtile